بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan kusoo guda jirnay maalmahan sheekada ama qisada dheereed oo ku saabsanay taariikhda iyo taariibka waxay noo soo joogtay anagoo kasoo tagnay aniga saaxiibkii xalana iyo ninkii Suuriyaanka ahaa magaalada Salisbury oo aanu jarnay xuduudii webiga Danube aanu jarray oo khatarta aanu ku galnay habeenkii labaad meel aan hadda magaceeda garanayn laakiin yeyd badan ugu maaragtay xanaaneeyo oo aan malaynaya yeyd in waardiyahan loo diyaarsaday ilaahay waa naga badbaadiyay kadibna yeydi kadib aanu tuulo yar nimid oo wadadii weyneed baanu ku soo dhacnay halkaas aanu soo inoo joogtay tuulada yarta markaanu nimid oo wadada dhinaceeda ku taal waxaa ku yaala meel yar oo petrol station ah petrol stationka waxaa taagnaa nin Afrikaan laba nin oo Afrikaan laba nin oo madow oo gaari yar wata gaari noocan u malaynaya jeepka mise bijoodka abnacaas oo kale ay wateen maaqan waxay sugayeen marka wayna salaameen annaguna waa salaanay tahriib miyaa tihiin bay yiraahdeen mayaan dhahnay marka saaxiibkii alla hadla wuxuu yidhi meelahan aan ka nimid beerahan aan ka shaqaynaa way nagu qosleen marka waxay dhaheen beerahan aan ka shaqaynaa suurtagal maahane Soomaali baa tihiin ninkaana kolley waa qolo kale maydin qaadaynaa Munich maydin geenaynaa lacag mana siinaysaan adigu cabaar aakhirkii waa la hadal waxaan ku niri adinku maxaa tihiin waxay yiraahdeen dad Suriname u dhashaan Suriname waa dad madow ah cadaan kolley inay ku jiraan u malaynaya Latin America degan dadka Afrika laga raray ah Suriname waxay leeyihiin baan u malaynayaa xuduud wadanka Venezuela waana wadamada Holland ay gumaysan jireen waxaan xasuustaa ciyaartoy Holland u ciyaari jiray oo waqtiyadaas hore ciyaari jiray oo oran jiray Ruud Gullit inuu ka soo jeedo meeshaas nin madow oo timar raama ah walahan jiray marka nin baa dhaga ugu jira sida dumarkii Afrikaan badan baa saaska wada ogtihiin aduu waa la heshiinay calaa ay xal xogaaga yar aan wadanayna waanu siinay Munich inay geeyaan baanu ku heshiinay sidii baan soo raacnay marka magaaladii Munich markaas almost 3 meelood 2 meelood aanu soo dhawaanayba aan soo jarnay oo markaan xuduudda ka soo goynay maxay la Munich Salisbury waa 116 kilomitir markaan soo hubiyay waa 116 kilomitir waliba aan warwareeg galay aduu 40 kilomitir meelahaas aan soconay in qiyaasaya markiiba adiga wado fiican buu haystay wax yar kadib dawuuna keenay maaqan 70 kilomitir meelahaas soo socdaan u malaynaya wado weyn anigu highway magaalada ku dhex jira oo wadada waa xasuustaa loogu magac daray Einstein ninkii la oran jiray Albert Einstein oo ahaa ninkii Jarmalka ahaa Jarmal ma ahan Yahuudigii Jarmalka ku koray ee saynisyahanka ahaa physicianka xagga physics-ka aad u yaqaanay ee markii dambe America u cararay 1945 kadibna soo saaray nuclear-kii ugu horeeyay adduunka inaad ka waraysan waan rajaynayaa 3 xabo wuxuu sameeyay bamka nuclear-ka loo yaqaanay 2 xabad waxa lagu tijaabiyay New Mexico labadii kale Mareykanku wuxuu ku dhuftay Japan maadaama dagaalkii weynaa ee uu socday Japan iyo Mareykanku dagaalamayeen magaalada Hiroshima 3 cisho kadibna magaalada Nagasaki waa lagu dhuftay marka ninkaas wada loogu magac daray Einstein Strasse baa loo yaqaanaa markaan soo galayna baan ka akhriyay meesha boorka walina waan xasuustaa dalika fadlullah ilaahay baa mahadle oo xasuustaas siiyay ninkii marka wadada dhinaceeda waxaa maraya haween baa waxay kala marayaan buskiliitiyaal soo dhinac maraya hadba islaan buskiliiti wata wadada intuu ka baxay wuxuu ku dhuftay gadaal uga tagay yani buskiliitu gadaal uga dhacay markaas hore u duush oo mirshibiyadii meesha wadada dhinaceeda bay ku dhacday ninkii gaarigii buu istaajiyey wuu degay islaantii buu raali ah u lahaa oo yani stootmin light waa af Jarmal buu kula hadlay bite buu lahaa marka dabcan meesha kama tagayo boolis baa imanayo maragta anaga already Munich waa nimid ninkan hadda shilkan asaga galay asagana ka dabaalanay daaqadan iska furnay waa ka dhaqaaqnay marka asaga iyo shilkiisii iyo islaantii bay la hadlayeen dabcan boolisna loo yeerayaan u malaynaya adigu kala dhamaanay
magaaladii baan soo galnay bartankeeda markaan maraynaan ku niri ninka Suuriyaanka ahaa halkan mataqaan Munich way yiri waa fasaxanta baan ku niri marka waa soo gaartay waa timid ama santiin buu yiri wana salaam isagoo dareensan laftigiisu inaanu tahriib nahay ayuu dareensan yahay maxaa ilaa meesha u dambeysay aanu la nimid wixii aan wadanayna baaburkan kalaan soo siinay xataa uu og yahay oo ninkan madooban siinay marka waad maasantiin buu dhahay aqligaas ilaahay baa na siiyay asagana waan ku anagii asagii ku soo wada maray asagina waa meesha u baahnaa waa kale waa gaaray Nuremberg magaalo la yiraahdo socday nin oday oo weyn buu ahaa labadeena waa soo baxnay ma socon karna marka socodkii hore aanu soo soconay awgiis dhulkuna waa qoyanaa cagihii baa waxay ku dhow yihiin in baxaan yani cagta hoose oo dhan waxay noqotay nooc sida shabaqi oo kale ah oo sigsaantii iyo kabihii buudka iyo qoyaankii baa isla galay haddana aan ku orodnay cawskii biyaha badan lahaan ku dhex orodnay xalay oo kale markii baasho aanu ka cararayn marka meel aan ku aadnana ma naqaan kaliya waxaan raadinaynaa bal dad madow oo dad noo tilmaamo oo Soomaali noo tilmaamo waxaan markii hore raadinaynaa waa Soomaali kadib aan raadsan doonaa meeshii ay qaxootiga iyo Jarmal ku qaabilayeen marka cidna ka baqi meena marka haddii xataa na qabtaan booliisku waa ku faraxsan ayaga na geyn doona meel marka qaxooti laakiin waxradan soconay nin dhalinyaraan aragnay oo Afrikaana waa salaanay Nigeria inuu yiraan u maleynaya wuxuu ka yimid aduu West African kaas way Nigeria miyuu ah Guinea buu ah ma aqaan wadamada oo waxa waaye West Africa mid kamid ah nin Soomaali noo sheegay Soomaali miyaatiin biraha ana u socdo meesha degan yihiin keenu yiri tareen ma soo raacnay waxba anoo kaar ma wadano iska soo galnay asaga wax gargaraacday soo soconay meel wuxuu geeyay xaafad fog oo tareenku cabaarna sii waday marka haddana markaan tareen ka degnaan lug dheer qaadan sii lugeysi aad ba lugta noo dhibaysaa marka oo xataa waa dhudhutinaynaa marka qaarkood xanuunkaan cagta ka xanuunsanayna wuxuuna keenay meel qaxooti degan yahay konteenaro la isdul saaree konteenaro guryo ah oo sida maaragtay qoloba ay konteenar degan tahay marka halkan Soomaali baa degan biyo ninkaas waa Soomaali nin buu noo tilmaamay soo guri caadi oo sar ah degan oo konteenarada dhinacooda ku yaal ninkii baan soo aadnay waa salaanay uuna salaamay diifta nagan muuqato arkay soo gudbu yiri asaga ninkiina waxaan ku nirnay waa maasanta uu naga tagay meeshii baanu soo galnay waanu farfariisanay xaaladeenni uu aad ula yaabay markiiba cunto iyo waxbuu noo diyaariyey iyo shaah iyo waxbuuna siiyey qubays buu meel halkaan yiri ku qubaysta oo biyo kul markaasaan kabiib iska bixin weyn uu yaabay marka niman waa soo jabteen buu yiri see xaalkiinu nin lug baanu waxaan ka soo lugaynaa aan ku niri Austria marka dhul 40 kilomitir dhulka duu qalalan yahay lugta xama wada qoyan oo dhoobo iyo biyo dhex socota ayaan soo socon haddana ku orodnay meelaha qaarna buura fuulaynay marka cagihii baa dhibaato badan naga gaartaan ku niri soo wuxuu noo qaban karo noo qabtay biyo kulul buu na siiyey meesha biyo kulul bay leedahay biyo kulul aan ku qubaysanay wixii baan iska bedelnay cunto noo diyaariyay kulul cunto fiican buu na siiyey digaag baan ka dharagnay iyo bariis markaanu dharagnay buu yiri kulay waad safar baa ahaydeen waana daalanaydeen laakiin meeshan qof walba qoliisa lagu raadiyaa asagu waa reer waqooyi waa Isaaq waa reer Cerigabo ID-gii una weydiiyey marka isagana weydiinaya ID-gi waa iska Soomaali isu timid qabiilkeeda isu laakiin marka hore una marti soo hore si fiican qoladanadii baanu u sheegnay ninkii waa qaboobay ninkii marka hore nashaadka lahaa xoogaa buu aamusay maxaa kugu dhacay maarniyo ma la yaabtaan ku yiri inaan qoladan ku sheegno isagu waa isku kay sheegay habariyeen isu niiraan maleynaya idinkuna isku kay sheegay buu yiri markaan isu sheegnay waa cabaar aamusay maxaad aamustay maarniyo la wax kala ma ahan buu yiri laakiin ifka inta noolaa ismaan lahayn qoladaas oo martay ku imanaysa oo ku baahan doonto maxaa ka wadaa baan ku yiri Soomaali ma nin isma baahnin haa buu yiri haa marka ma wax kale oo dhibaa jiraan dad soo lugeeyo Soomaali adag kugu soo dagayso sharaf ay tahay buu yiri laakiin waanan ku xisaabtamay iguma jirin
haddaba ku darsaar marka isu baahanna annaguna kugu degaynaa adna waad nagu soo degi doontaa waxaan hadda socda soomaalida is ceyrsanaysaana waa maalmo sii jiri doona maaha soomaalida ma kala maaranto marka aad baad u mahadsan tahay soo dhaweyntaadna soo dhaweysay iyo wanaagga aad noo muujisay iyo weliba inaadna marti soortay marka hore adoonna weydiinba waxaan nahay oo soomaalinimada kugu weyntay aad baad u mahadsan tahay maya qolbu meeshaa noo firaashay halkaan dega buu yidhi sijaayadaan ku tukanuna siiyey meel halkaasay degan yihiin buu yidhi maanta iska seexda caawa iska seexda beri subaxii u tagay qoladaad qaraabada ahaydeen maalintii halkaasaanu joognay cagihii baan waxaan saar kuraas inta la saaraba hibaal hiitar oo kulul baa saa loogu hayay saliidna waa marin cagihii baan laga socon karinba tabicaan baan ilaahay mahadii ninkii odaya si fiican cumar inuu ahaa waan malaynayaa magaciisa aniga isaaqa bari baan ahay buu yidhi ergaabaan kasoo jeedaa si fiican buu ninkaasi noo qaabilay dib dambana ismaana arag markii aanu kasoo tagnay subaxii buuna tilmaamay wiil yar buu nagu daray wiilkii yaraaba habsaabi meel noo soo marinayo qolo kale noo keenay ayaguna xaafado isku rarana meel degan isla eeriyada konteynarada markaan kasoo baxnay kuwaa u nimid mid aan garanayaabaan meesha ku arkay reesiyaada waa issalaanay waxaan ku niri anagu dee halkaan uma nihin adinka martidii ma nihin na gudbiya qolada hay-adda wax qaabisho meeshadana geeyey wasaaradda arrimaha gudaha miya ma aqaan mise xafiis jarmalka u qaabilsan qaxootiga markiiba gaari baa nala ku qaaday meeshii baa nala geeyey meeshii baan saf soo galnay qaxooti cusub baan nahay markaan xaggee ka nimid Czechoslovakia ka horna Russia ka horna Soomaaliya waddo kale oo halkaasaan jaahnay haddii Austria la ogaado waa khatar magacyadana la bedelinaya magacyo kale la sheeganaya meeshii baan marka dhalinyaro kale oo Soomaaliya isku baranay iyaguna meesha yimid isla maalintiiba inteena qoreen bay waxay tuulo nagu inta kaarana siiyeen tareenkaas raaca tuulada la yiraahdo Germering Unterpfaffenhofen waxaan ku faraxsanahay 30 iyo dhowr sano ka hor 1992 waxaan u maleynayaa laga joogo 32 sano yaan filayaa ma hubo waa xasuustaa magacyadii oo dhan waa daakira ilaahay isiiye ilaahay baan ku mahadsan subxaana wa tacaala meel aan ku qortay ma jirto dad waxaan arkaya commentiyada kusoo qoray sheekh ma buug bay kugu qoran yihiin waxaan marka buug iguma qorra laakiin waan xafidsanahay intaan xafidsanayna waa idiin sheegay kumana ziyaadinayo kamana dhimayo waxaan garanayo Germering Unterpfaffenhofen micnaheeda ma garanayo unter waa under laakiin Pfaffenhofen das ma aqaan meeshaasaan loo diray tareen baan raacnay tuulo 30 kilomitir min 25 kilomitir magaalada u jirta waay oo xarun tareenadu saldhig tareenada u badan yihiin meesha waxaa laga dhisay guryo waaweyn oo qaxooti oo baakad in laga dhisay aad moodo dhinac marka laga fiiriyo haddana containerna aan ahayn oo qolol leh qol walba 3 qof waa la dejinaya kushiin baana ka dhaxeeya raashinkiina waa lagu keenay isagoo ceerina ma aha sida kuwaas inta raashinka kariya fargeetada balaadina dhex noodasiinaya ma aha cuntada lagu keenayaa kartoomaa lagu keenayaa nooc cuntada noocay doonto waan ka dharagnay laakiin lacag ma hayno anaguna lacag doon baan nahay cunto doon mani iyo shaqo inaan shaqayno marka waxaa la waa joogaysaan dhowr bilood kadib mise 2-3 bilood waxaa la siinayaa ausweis wax la yiraahdo ausweiska marka lagu siiyo kadib baa lagu ogolaa inaad shaqaysan karto waxa suurtagal ma ahan see yeelaa markaas waxa qaxootiga ku jira haddana nala ku salladay niman ka soo jeeda galbeedka Afrika oo carabtu dhulkii ay qabsatay awaagi islaamku soo galay waqooyiga Afrika khaasatan wadamada Morocco Tunisia Jazaa'ir ilaa iyo Mauritania dad la yiraahdo waxa jira barbarian oo dad cadcad waa dadkii Liibiya markii ay soo galayeen muslimiinta hore dagaalkii xilligii saxaabadii oo Umar uu joogay radiyallahu anhu oo hogaaminay jirjir waxa diray nin saxaabiya Abdullah ibn Zubair baa dilay hogaamiyahoodii saasa lagu soo gal dhulkaas ilaa Morocco lagu qabsaday marka waagaasi loo qabtay ilaa hadda carabta maamusha carabtii xataa laftigooda diintii ka tagay inxiraafay ayaa iska maamulo ayaga waa la jabiyey barbarkii qaar badan waa islaameen far gaar ay leeyihiin yani hidiyo dhaqan gaar ay leeyihiin buuraha Morocco iyo Jazaa'ir iyo degay u badan yihiin nimankan waa kuwii marka oo iyaguna islaam sheegta sidanoo kale sida Soomaalida kale waa laakiin markay carab maqlaan waa niman show u soo waxay u yimaadeen halkan inay isdhiibaan carab la dagaalamaan
وسياسات قلبات wadamadaas waqooyi Afrika jirta carab nacaybku fartoodii bay baranayaan waxay ku doodayaan in wadamadooda la gumaysto carabi gumaysto reer galbeedkuna arrintaas aad bay u rabaan soo dhaweynayaan nimanka marka ilaa 6 nin baa meesha ka deganaa ayagoo kala wadan qaar Jazaa'ir ka yimid Algeria qaar Tunisia qaarna Morocco waana walaalo oo berber ahaan bay isu wataan luqad gaar ah leeyahay berberiyanka luqadda la dhaho annagii carab bay noo haysaa carab ahaan bay noo colaadeen marka afar baan ku joognaa Soomaaliya labadeena aniga saaxiibkii xalane iyo laba kale oo dhalinyaro oo reer berbera ah oo habara wala isaaqa Mustafa iyo Mukhtaar baa la kala yiraahdaa inaayahooda ma xasuusto Mustafa waa nin xoog weyn marka Mukhtaarka xoogaa nin tabardar iska caata ahaa laakiin Mustafa nin xoog loo saddex nin u dhigmo ahaa marka laba qol baanu deganahay nimankii waa sanka nala galay oo cadaawad noo filo oo horta markii hore xalaniyan ila socday iyo mid berberiyan dagaalamay caadi isu feeray waanu kala qabnaa dhexdhexaadina markaa wadnaba dhan bayna la dagaalamaan nimanka cooqdad kale ku jirto annaga carab ahaan bay noo colaadinayaan maxaa naga rabtaa baan ku niri maalintii dambe oo waxay yiraahdeen dhulka naga khasab baad ku qabsateen laakiinse waa idin ka xoreynayna annagoo ah baan ku niri idinkoo carab bay yiraahdeen nimankii cadaaba annaga carabna dhahay niman aad ba maasantii baan ku yiri annaga noo aqoonsateen inaan carabnimadii xigno islaamku markuu soo galay dhulka naga la qabsaday adinka qabsaday adinku waxa tiin biri carabta Yemen iyo Soomaali een carabta kala naga soo qabsatay dhulkan oo Shaam ka timid على أي حال إن الإسلام ولا هذا ونما يودانو كل جنب ماشى مسلمين كأهل سوا إن دهنو نك دجالهم بينو سوق هذا ما أنت دم مصطفى يعني قام مالس كفر إنه شاهين يسوع شو هالشيء هل مرنا وير نو سوق هذا مال حاجة كوشين كالله فريستا جل تي في لقى داود اسكو شاهين شاكيزنين وير بسوق هذا مختار كنا عتاب وهاي جرو اسكو حرق حالانينا وانا مقنع أنا مصطفى مركا أفر نبى نوزوجش لكن لا ما ديني كان أصدق ودقمة وروسخ وانا زوجة لين بنكون كوشين بنكون جرني مركا هداد من دي وحقاته هذا دم بيحكون نقول هني من دي قاته وده كيس كلاوي ما أنا قاعدين لكن وانا من لقدين يقانا عرفت قول فيرك ولا في عايز قرب بديها ما نملينه كي هو الرئيس مصطفى أنت قبته وحوس عريبة بالكي وحلو كرني يدوشيس إيش أصلا مشيتنا لكن بالك كدر طورك سوى رمبا ميت كلنا درب وساء وتيري لابد كلنا أنا لف يرتب لكن نبى بناك أنا جري يا كم إذا باص وكسر قالوا قرن كان على الباب كوي أنا قاعد علنيه أنا قصاص حرانيه بيميت مختار كي بيميت سف عم بالمركان وقعد كان واتشبني قدوميه هذا مغير مرك لأن مروكان هو حاجة إسقى عاقلة كوان وحاسلة وكوا السفهاء عندوف وكوتو في ياسير دمرك وكحاجة ده قال أنت تو بس كهذه مركز أنا ونصفي عنو فيرني مصطفى بحيمت كي يجا قدومي هذا أنا وأنت عايرني أنا أسك فوق اسمها أنا وكوسا قمامية أنت جرعنا الباب كتورنا هوس كحرن بنان كعيتميان مركز أفكار ذا كعيتميان كي ما لحظة هذا بيميت يكون ماشي معمول يجرم كأها وهو ذا فريسني بس كي ما لحظة نحن كنا نصور رتين ولما نقول إذا كنت عوين من المكان يودك كان نجعش هذا وصيب أم كل شيء مدة هرت المكان وحن أوجعنا بعراض المكان سكترت وعرب وقبام بأنه وصومالي إن الله يعني عربني من نودلين أقول فرح حسن أنا صاحبنا عربني من الله دجال ما يسان أبيله ما جز عرب نوت قانان dadka la Afrikaan ah doobana ma colaadinayaan nin Pakistaani ah xataa islaamnimo noo soo dhaxgalay oo isagoo carab iyo heshiisiinaya iyo barbar marka anagu Soomaali baan nahay baan ku niri laakiin ninkaan carabnimo noo dilay nala dagaalamayaan annaguna carab ma nihiin iyo midna ma aanan dheheen sutida u qabano iska celin oo ismaana daciifin ماشي waxaan joognay bil baan u malaynayaa intaan bishii gaalin oo aniga xalana waa tashanay raashin ma iska cunaa iska weynaanay qof walba laba nin buu leekaaday daawona waa la iska haystaa dhalinyarana waa leeyahay markaas waxa weeye waxaan aqal ma haman kun maxaan ku baalkii hada kow shil ma hayno oo gabadhii xataa waraaq uma diri karo waxba lama hayno marba xoogaa soo aroosay call box baan tagay
qola xaafadoodan la hadlay oo dhudhamo kaada ilmaha iga qabtay islaam inta yartaana wuu kaa cunayaaba mid kale aan ku shubay oo midka dibadda marka lala hadlay xoogaa maasha hadda adduunkan wax ilaahay waa fududeeyey alle subxaana wa tacaala aad bay dhib u ahayd warisgaarsiintu weli lamaana hadlin gabadha xaaskayga ahayd walaa reerkanagii kale iyo dadkii joogay Nairobi ay waraaqaan u dirdiraa meeshaan maraya waa u sheegaa gabadhan waa u diri jiray laakiin maba ayna helinba waa dambe ii sheegi doontaa waxaan halkan joogis male Mustafa Mukhtaar waxaan ku leeyahay waa tagayna xagee Stuttgart waa gobol kale ku sii xiga Munich kaasa xoogaa fiican baa la yiri oo qofku markuu bil ka yar joogo hore ka shaqeeyo shaqo anagu shaqaanu rabnaa lacag baan rabnaa bariis doon manin hadafkeena bariis waa ka weyn inaan lacag abuurno wax soo saarno haddaanba waxba baranaynba maxaan iska cuno iska fadhi maxay tahay oo TV iska daawo kaasala iska bararayba waana hadii cunto la siiyo waa wanaag waa ugu mahadinaynaa cidina wanaajisay laakiin hadafku cunto waa ka ballaarnaa shaqadan oo 3-4 bilood kadib baa la heli doonaa yaa lagu ogolaan doonaa heshiinka nasiibka baabuur baan soo raacnay marka liftiyan noo helay qolo Jarmalay wadato waana soo qaadeen waxaana keenay meesha kama foga Stuttgart laftigeed magaaladii bana keeneen magaaladii waxaan soo galnay meesha trainada train station-ka nimid makhaayad weyn oo ku taala aragnay gabar madow oo Soomaali oo eego ka shaqeynaysa haddana timo qaawan oo surwaal shaati wadato marka amxaara inay tahay Eritrean aan ka shakinay Soomaali badan waa is asturtaa inkastoo qaar qaawan ay jiraan waa nimid waa salaanay waana salaantay waxaan ku niri Soomaali baan adigu iga tahay Eritrean baan wax Soomaali ma ku garanaysaa halkaan ma ku ha wiil baan garanay isugu tiri markii qolada u tagtay wax way kala habaysay halkaan ugu jiray marayar baa ugu xiray cad ku adeegaysay wixii iska soo furtay waana soo horkacday iyadoo faraxsan oo muujinaysa inay walaalnimo noo muujinaysa cabaar bana soo lugaysay dabaqyana soo saartay nin meeshaana gurigiisa wada computer suuq bir u furfurayay computer iyo telefoon baaladan ay sheeg kii waxa lagu qorqori jiray typewriter kii waxaas inta furfuray ma aqaan waxaas ka shaqeystaa ma leeyahay oo dhalinyaro baan loo inoo keentay halkaan u degan yahay tirnigan say ku gara Umar in tiran maranaya walaalaha baan ku wada ama santaa ku niriyadi jarjarada ka degtay iska baxday ninkii baan soo dhaweeyay waa fariistanay koob shaah noo shubay ay ka timaadeen biriis iska xirxiranaya koofi baa ugu jirto koofida nal yar baa ku rakibano waa nooc ma engineer mechanic waa biraha yarka ku mashquulsan gurigana meel laga istaago ma leh kursi aad ku fadhida xagga bir baa daadsan nin waxaan ku niri noo sheeg meesha la qaxootiga nin ina idin geeyo way cabaar ba jirtaa yiri na tilmaan anaga iska tagay anaga tagaynaan ku niri dhib male tareen maanta ka raacaysaan wax yar bay idin jirtaa Carlos Ruha la yiraahdaa Carlos Ruhe waa maasantaa baan ku niri markaas taagnay wuxuu yiri iimadan warramine wuxuu naga weydiinaa mataqaan ID-gii waay kaas adigu ID-gaaga namaada sheegin أنا أبقى له داود أنا هير أنا قلت أنا مش شايف داود متقنا بير ها بانكوير وصاحب هذا درس أنا هن رجاو بنقرنا يا بانكوير متقنا بانكوير رجاو مركز سوريشاني إيو شري أبو سما ها يا داود يا برولي ها سرسي على أصلا سوق سي على أنا بدي رسي على أصلا بانكوير داود بان خلاص ما كان دتك واحد أنت واحد كانوا هذا رجاو كل واحد أنت وان مغلي هذا باصلو شغالين جرا موتو ودن جري فيسبا واي هاي بيرو أنا صو وذي ترى ماشي سونا كياني العق ما ربطان بما العق ما هذا مرة ماشي نات المام بس أنكون نري هكذا صوتكم ترى أنا صور عني حنقول دقنا كارز روحه كارز روحه وعمل قحوتي اللي قابله ودواتوين هي قبسن دوت وحن صوغلنا دتكي أو صفن ومشان كو أركي روش قحوتية الشينيس قحوتية بولن قحوتية مصاري قحوتية ليبيان قحوتية مراكا صومالي أفريكان بانمود إنه أدون كردما ياعي بوضا قحوتية صف كجرة وإلا الليس قرأ يرب حدا يمادين كارز روحه وعمل قحوتية لغو قابله ودواتوين هي قبسان دونت وحان صوغلنا دادكي أو صفن ومشان كو أركي روش قحوتية الشينيس قحوتية
بولن قحوتية مصاري قحوتية ليبيان قحوتية مراكان صومالي أفريكان بانمود إنه أدون كلهم يا عيب وده قحوتية صف كجرة وإلا اللي يسقر يرب هذا يمادين مركز على حاجة تمادين صومالي صف كأفريكان كقال عليه حاجة فيري وحن كو أرك تونسيا أو صفقة مصر أو صفقة لحقة في تضاقف في كتاجين ليبيا أو صفقة مراكو أو صفقة iyo dadkii madooba Congo Nigeria Guinea wadanka la yiraahdo Uganda wixii wada safar iyaguna oo 34 ka badan ilaa xagee bay safan yihiin Afrikaanka inta waxaan ku yiri welcome brother Somalia baan ugu yiraahdeen ayagan warayst waxaan ku yiri kuwan soo Afrika ma aha Afrika soo qaarad ma aha soo midab markaas waa qaarad weey تونسي ليبي مراكي مصر يحيكوا يالان مركز أفريقيا واحد يجوا هالحال بإسكندرية أدوكوا هالحال ما إسكندرية كونغو نيجيريا غانا غيني ما أصفتان زائد كذي عبار بفيرين والله ورم بدين قارون هيلا نو أنا هل كان صفتان لي ما شنكو صفنا أنا يا صومالي وأنا مركز صفا صبست أنا نكي يقصد في البحر mid amxaar ayuu ku dhex jira markay Etoobiyaan amxaarkiina oo soo baxay saddex buu nagu noqday gadaal buu soo istaagay maxaa taan ku yiri ya brother Ethiopia baan ayir walaalkay matid baan ku yiranayo Ethiopia walaalo ma nin aniga niga yiranayo dadkan ku badsanayna naga daa Soomaaliya loo maleynaya annagoo saddexdii Afrikaanka waxaan aqeen waxay yiraahdeen safkanaga soo gala soo buuxiye waxaan mid Tunisian intii soo hadlay maxaa safka u gari weydeen buu yiri soo Afrikaan ma tihiin adigu ma Yurub ku taallaa Tunisia xagee ku taallaa kaasoo aamus afar qof shan qof arkaysa oo calan wato oo dhahay annaguna halkaan taaganaana Soomaali aan la yiraahdaa Afrikaankii soo midowga ma nagu weerarayaan ma aqaan dagaal baa nagu soo afar nin baa la celin waayo oo Congo u dhalatay ilaa safka nala soo galaysa idan lama galaynaan ku dhiraanay محمد حبنا هنا دجال بينو سو قادين horta amxaarka waa carar dagaal nala galo warkiis ka dhaaf markii iyagu dhax galay labadani waa si kala jeesanay marka ilaa afar shan waa nimankan waa naga xoog badan yihiin laakiin askartii iyo wixii wax kala hagayana ma aqaan markaas wali waxa break time bal waxba lagu kala maqan yahay umaleyn waa isfeerna nimankii aniga ninkaan waa si kala jeedna ayagu laftigooda ma soo degdegayaan oo bini aadan weey waxaan gacanta ku wadanana male laakiin waa isdifaacayna annagoo saasa ilaahay wuxuu keenay afar nin oo Soomaali oo socota boorsooyinka oo jiidanay oo laba dagaalka labana lama galin markii waa baqeen ma aqaan meel ka yimaadeen Soomaali noocay ahayn ma aqaan laba kale nin la yiraahdo Axmed oo reer Bardacada Jariban inuu ka soo jeedo Umar Maxamuud oo Faransiis ka yimid iyo nin kale la yiraahdo Okio ina ko sardid oo cayr oo ka soo jeeda Gurcaal labaas waxa arkaan oo Soomaali oo ku hareeraysan yihiin boorsooyinka inta dhigeen dhinac kale kaga bilaabaan ayaguna nimankii afar markaan soo noqonay arkeen bay baqeen dagaalkuna waa ballaartay kuwii kale waxba noo qaban labadii baqday laakiin shandadii bay u hayaan kuwan boorsooyinkii bay hayaan waana muuqdaan oo in wax kala celinayaan iska dhigayaan nimankii markaan saaxiibadii helay oo dagaalkii saf iyo saf u noqdaan iska riixnay jug fiican oo ku dhufan iyaguna nagu dhufteen askartii Jarmalka ayuu yaacay markaas ayaan maxaa dhacay in af Jarmalka yaqaan ila socda aniga marka wuxuu waxaan ugu khasbayaan iyaga soo dhax galno adigu maxaa tiin Soomaali baan la dhahaa laakiin inta ka samaysto yiri marka kaasay Soomaali inta saf qaadan Soomaaliya toos ay qaadeen waa xoroon macna waxaan diidnay inaan cidna ku biiro safka hore istaagay habar Jarmal soo hadashay waxay tiri Soomaalidu waa dad u dhuuban laga xoog badan yahay yarka ay fasiri doona cidna yaan lagu dhex darin beetir waliba iyaga u soo hormariyay oo dadka la soo sideynayo oo wax laga qoray iyaga u hormariyay marka lix baan nahay amxaarka soo dhex galay dadka kaasaan arkay ana dadka hogaaminayo dal xoreeyay ay bixiyeen dal xoreeyay marka Soomaalidu okay haday nooliin magacaas waa isku haysanaa aniga Xasan Sheekh Maxamed kan qaatay marka waagaas sheegay dibda ma wax sheegay magaca maarag laakiin magaca dalkeena aan deganaa baan ka xoreystay in Afrikana
africa waa ka mid nahay laakiin inay gaar u istaagaan ama kulligan la isku soo daro carabteena iyo cajamteena waa sharaf in tunisia 4 qof ka soo istaagto iyo morocco qaaradii oo dhan halkan waa xoolanimo iyo maaragtay ضعف waay markaan xorownay iyo amxaarka safka soo gala shafkan gacanta ka saaran walaalaha u tag walaalaha africa u tag kaasuu iska laabtay nin baa yidhi ma iska dayno wallahi lagama yaabaa yidhi kuwan la fiirtamay asaan ka necba safkii baan soo galnay meeshaana loo qoray baadaha guddoomiye waa soomaalida haa kaaba guddoomiye waxaa noqday hogaankii soomaalida la iga dhigay gudahan galna markiiba waxaana loo qorqoray gobingen meel la yihahda la yidhi dega dadkan faransiiska iyo france bay yurub bay muddo deganaayeen ma aqaan halkan dukumenti bay ka rabaan miya ma ogi waxay ka soo dooneen jarmalka ma aqaan labada nin okiye iyo saaxiibkiis inay ka hoos ardiid laakiin faransiiskiina magacyo kale la sheeganayaa qofku ma aqaan waxbuu marka magaciisa kale caadiga xataa qofka ma xasuusto inay ka hoos ardiidna dee yurubiyaanku uma yaqaanaan haddii hadda magaca ku raadiyaan gobingen tuulo la yihahda naloo diray tuulada baan soo aadin markay intana baarbaareen dhiig naga qaadeen wax magacyo maartay qof walba kaar xun la siiyey meelihii horaaba roona mar alla markaan soo galna horta jiifkii waa okay laakiin cuntaan saf u galna haddana war ileen balaayo aan saf u galna waa meeshaan ku arkay yaanyo cunto xabad yaanyaa saxan lagu saaray iyo xabad rooti waa yaanyada anaga aan naqaanay tamaandhada oo midda buurbuuran oo Soomaalidu hadda ay u taqaano samirsaan miyad magaca anagu baamadooraan dhihi jirnay waa weyn koosku hal xaba ah iyo rooti iyo maraq yar oo khudaar ka samaysan way cashadu waa isfiirna saaxiibka wuxuu yiri bas waan waa tagaya boon baan aadaya boon niman u yaqaano oo reer Galbeed isla ah inuu reesiyadan aadaya biyo oo si ku aadayso xamaastii tareenka raacaya ku dhuumanaya biyo nin qaxooti waa ma dil qabta xataa meesha qaxootigu bay keenayaan xaba waa iga tagay waa horta suuqa dambeysay xaalanaya asaga dib isma naarag hadduu nool yahayna dee waa salaamaya ma aqaan xaalkiisa dib dambe ba isma naarag gobingen baan ku haray saaxiibadii France ka yimidna bil iyo laba markay ila joogeen meesha waxaan ku qaatay 4 bilood baan u maray socodka bas weeyaan markaan dambe mar dambe ma soconayo wixii alla ii qadaran sugayaa markaan marba meel baan tagi waan sii ordi meel kale magac cusub iyo haddana in marba baaritaan cusub iyo saf kale cusub iyo waa iga dhaafaan ku yiri qolkii baan iska degay niman Maroccan oo meesha 10 ku akhristaan la saaxiibay oo nin sheekhu la socdo oo kutub akhriya oo Bukhari sunanka saxiixanka akhrinaya laakiin Malikiya oo ayada lafteeda waxna dhex mari doonaan meesha saan cunto ka soo qaadan galabtii ayadana soo qaadana subaxina blue band kaasi waxa ku soo la marsanaya qadana ma aqaan bariis iyo spaghetti waxaan siin jirin adigu cuntaan uma fiicneen marka waxaan bartay meel kale oo masaajid weyn oo Turkidu ay leedahay waan tagaa quraan ku soo akhristo niman Turkiyan la saaxiibay beer dhexda ku taalo niman Jarmal u leeyahay oo tufaaxana waxa la yiri free bay idinta tigeed ko istaagan sa u ruuxa markaasan bacdan iska soo qaata laftigiisu wuxuu ii noqday kayd buu ii noqday iska cunaa waxba yaana warkeedin ku daalan ninkii Maroccanka wadaadka baan la bilaabay kitaabku ilaa 6-7 nin buu wax u akhriyaa dad badan baa jooga galbeedka Afrika oo Morocco iyo Tunisia xirada laakiin ninkaana ugu sheeksan waan dhageystay xadiidka markuu sheego qaal Imaam Malik buu ku xiran hadana wuxuuna ka dhigan jiray istiftaax marka uu furfuranayo qof walba waa inuu muqallid yahay waa inuu ku xiran yahay sheekh madhab ninkan madhab lahayn muslim ma buu dhijir war ilaahi amarkiis madaahibta afarta ah Imaam Malik Malikiyada ama Hanbaliya ama Ahnaafta aan kamid ahayn Abu Hanifa madhabkiisa ama Shaafiiciyada muslim bimatiid buu qabay dad aan ogahay dad badan oo saas qabi jiray waan arki jiray waan dhageystay macallin maanta baan fartaagay waxaan ku yiri su'aal baan qabaa saxaabadu madhabkii haysteen baan Maliki ahayn markaas maya taabiciintana maya muslimiin baa sunniyiina markaasaan waxaa tiri qofkan madhab lahayn oo aymada afarta mid kamid ah aan raacsanayn muslim ahna anta alasta tukafir saxaabada soo magaalaysanaysid marka way isfiiriyeen kulligood warkuna waa logic oo caqli gal
hadalkii wadaadkana wuu ka hor imanaya waxaan ula jeedaa buu yidhi quruun almufadala wixii ka dambeeyey saddexdii qarni ugu horeysa wixii ka dambeeyey ninkaan madhab lahayn muslim ma aha maxaa kuu daliilaane cabaar buu aamusay hal anta salafiy buu igu yiri salafi miyaa tahay buu yiri markaasaan ku iran waa kuwa imid soo ma og Soomaalidu inay shaafi waliba waan shakiyay in dagaal la soo qaar ba indhaha igu taagay dad ba madhabka mooda nas samaawi ah oo indhaha igu taagay oo iscareysiyay su'aalahan sheekha weydiinay xataa ay dhibayso ولما العشر كي لقى بحيبه هذا الشيء كيسان أن شاه عبينا أن أحقلي صومالي ما هذا صومالي صومالي قدنا الشافعية نعم نعم بالبكاس يقى قبوبين بحوقا لكن وا سويديان كويري هذا واحد هذا قال نكان مذهب لهين دين ما لباتر دين ما لمعناه هو محي وقال هو صحابة التابعين يتابعوا التابعين تنا منا أيام هذا واحد أبوه الريبة وإمامك أبوه الرنتوا إمام أبو حنيفة waliba dhulka wuxuu ku dhintay ma Xijaaz waa reer Ciraaq buu ahaa 150 kii dhintay Imaam Malik baa ku xiga 179 kii dhintay Shaafici baa ku xiga 204 buu dhintay Ahmad bin Hanbal baa u dambeeyay 241 dhintay marka ninna taabici ma aha xataa kulligood oo waxa la sheegaa Abu Xaniifa inuu 7 saxaabi arkay xataa iyada laftigeeda lama hubo marka wuxuu yiri runtaa way yiri maalinta wuxuu bilaabay inuu yiraahdo waa inaad ahaato muqallid sheekh ku xiran madhab ninkaan madhab lahayn waa ahlul baatil awl wuxuu ahaa diin ma leh markii dambana waa ahlul baatil muddan meeshii sii wada joognay dadkan madahibtii iyo wixii bay ku ta'athureen oo waliba maalikiyada ayay waxay ka hormariyaan ma isla xadiidka nabiga ayagu qabuuriyiin ma ahayn إله غير كأيوه يرنا ما أرق مذهب كتيجانية أنا بعضي يقانا كون طريقة صوفية قلبات كابرك لجايست سأنا كون قادري أحمدي وليهين أيوه حلين تيجاني أحمدي لا أحمد ابن إدريس وتونسي تونسي كسر جدا كان صومالي وذات كأيقار بدن رأسيين بقولك والله باتم بلي هذا وتونسيان تيجاني بجري أحمد تيجاني أو موروكو موريتانيا مالي waddan kan la yiraahdo Senegal waxa suufi joogo dhan ay ku taathuraan oo yeertaan oo kutub ka qoreen oo arshiga xataa inuu arka qaar baa rumaysan meesha ay ka gaareen marka ninkii yaqaan ninkan aqoon loo sheegay maayo inuu bartaa fiican shirkiga baadada ay fahmaan marka nimankan kuwaas maaha marka laakiin waa niman fiqiga aad ugu xeel dheeraaday oo madaahibtana aad moodo inay samaawi yihiin oo ilaalinayaan war sheekhu ixtiraam buu leeyahay الشيخ النبي قال لهم هور مرين كره عليه الصلاة والسلام ما لما ويدي أنا وقعنت إساسنا عبد الحكيم بلدي يا شيخ عبد الحكيم صمدهم بنقول إمام مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي نعم قال هكذا ها وحندرسيني حديث صحيح هدو جرو إنه الراعي أصلا لفتي سبب سنة إمام مالك مركز المال وحويدي إمام الشافعي وحو خلافه بنقول إمام مالك محاك هذا markii hore waa adeec sanaabir markuu qaahirad Masar tagay ayuu isbedelay oo uu noqday maalikiyada ka baxay waa ka hor yimaadeen reer Masar aakhirka dambe ayuu asna madhab la soo baxay madhabkiisina hadda dad badan baa qaatay waana aqoonsanay in kastoo ka xunnahay inuu ka baxay madhabkii maalikiyada macalinkiisa ka leexday aduu waxaan nimankaas abaar soo wada joognay waxaan ka jafjafi karo oo inaan madaahibtan ay ku ta'athuraan wax badan baan ka jilciyay bal inay dareemaan dadkan inay culimo ahaayeen culimaduna aysan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam laga hormarin karin bal warkii imaam shaafici baan xasuusiyey ahaa haddii warkayga iyo warka nabigu iska hor yimaadaan warkayga ka tuura gidaarka gadaashiisu yiri imaam shaafici raximahullah imaam maalik raximahullah aimadii oo dhan nin walba waddada xaqaa buu ku toosnaa laakiin micnaheedu ma aha in asaga nabiga laga hormariyo waa taqliidu lacmaa baa loo yaqaan waxaas indha la-aan waay meeshii 4 bilood haddaan cidi ku wakiilan marka nimankaan iskala saaxiibay yaanyadeedaasna waa soo qaataa meeshan ku cunaa cid iga war haysa oo dadku waxa la yiraahdaa lagu yimaado haddii lagu yiraahdo anaga ninka wakiilan ama magaalada dejinayna oo lagu damiinto magaalada kala ku qaadanaysa haddii kale liintaada cabaysa yaanyadaada ayaantii dambe meesha waxaa soo maray nin la oran jiray Cabdullaahi Cartan aad buu taageeraa nin fiican buu ahaa gaari yar buu wataa waa nin reexaan reewa sharmaaka bahma jirteen
magaalo aalan la yidhaahdo degan yahay garaca marta aan maslixi jiray xaaskiisa cabdullaahi yuusuf ee laba walaalaha yaa kala dhalay cabdullaahi yuusuf axmed ina yuusuf yeey iyo xaaskiisu waa walaalo marka ayagaan la degi doonaa laakiin waa maalin walba waan maslixi jiray iyagoo laba siyaasadood isku haysta yani meeshiiba iigu yimid dadkii warwaraystay waxaa soomaali afar dhowr nin baan ku jirnay aniga laba wiil oo kale dadkii faransiiska aadeen kii saaxiibkaa tegayba asaga boon buu aaday meeluu ka dhacay ma aqaan xataa inuu meeshii ku guuleystay in la xiray ma warkama hayo aniga laba wiil oo kaleo yar yaraa ku haray oo iyaga meesha iskaga qanacsanoo laakiin qaraabo kule gobol bay qaraabo ku leeyihiin marmar bay aadaan oo soo noqdaanoo aniga meelaan aadan ma leh qaraabo marookaankan kutubta akrinaya qaraabo ii ah iyo yaanyadeedan shilinna waaba ishilmaanayba lacagba waa ishilmaanay ninkii baa yimi cabdullaahi caartan wuuna wareystay waa iswareysanay isku qolaan noqonin waxaan ku yidhi 4 bilood ka badan baan meeshaan maraya 93 inuu dhashaan u malaynaya markan almost ama waa dhammaad 92 waa dhammaada waayahay buu yidhi magacii iga qaadqaaday kuwa nambarkii iga soo qaaday meesha nambarka aan ku lahaa magaaladiisii uu tegey kuwii u qaabsanaa fulukti link bay igu yaqaanaan qaxootiga u qaabilsanaa ayuu iga soo rajisgareeyey ken baa la yidhi markaa guriba wuu ii soo helayba guriguu deganaa hoos buu ka degan yahay dabaqa koraa qol la iga soo helay maalinta dambe yimi 2 maalmood kadib yimi nakeen buu alaabtaas soo qaado oo meesha waraaqay wax la iga siiyey ninkaasaa meesha iga soo saaray waaba iska deganaan lahaa meel laga aado dambana ma leh mar dambana isla dhiibidii waa nacay faraha badneed hadba meel tag lacagna ma hayo iska dhaaf dadaan waraaqa u dire cid aan ka war hayo ma leh laakiin waxaan ku fiicanahay meelna qur-aankan ku xafidaa oo waxa weeyaan niman turkiya iga dhageysta oo masaajida halkaana qoladaana fiqiga isla wadnaa ayaga fiqiga maalikiyada akhriyaan markuu xadiidkii akhriyo qaala imaam maalik markuu dhaho intaas kale asaga iska leh anigu xadiidkan qaataa waana ka tagaa waa soo baxnay aalan meel la yidhaahdo i keenay cabdullaahi caartan qol baabaad ii diyaarsan qolkiiba i dejiyey kuwa meesha wakiilka ka ahaa mas-uul xafiis xun buu geeyey wixii baa layga saxiixay qolka waxaa degan in reer gaana 5 salaadood hal mar buu tukadaa islaam buu sheegtay xaaji baa la yidhahdaa qolku dhinac ka degay waa qol weyn ana dhinac baa layga soo dejiyey xaaji muslimiyaatan habeenkii baan meesha isku baranay koowaad ninkii waxaan arkay salaad markuu ka baxa mid kale u istaagay markuu mid kale markaas maxaa tukanaysaa markaas aniga shaqo waa shaqeeyaa subaxii aroortii aan shaqo galaa buu salaada subax intaan ku tukadaa laakiin inta kale shaqada ku jiro duhur casar maghrib iyo cishiyo soo laabtay afartaasaan hal mar jamciyaa buu kaasaan diinta haysata islaam ma waxaan markaasuu yidhi madhabkeeta adiga xataa madhabkiinu ma dhigayaan 4 salaadood israaciya wax madhab oo dhiga ma jiraaniyo hal subaxa tukataa 4 kalena duhur waxa weeye hal mar ba israaciya waxaas ma jiraan mashiicata adiga ninkii waa isku inkirnay sidii wuu dhibsada markuu wuxuu yiri niyo faraha iga qaad buu leave me alone waxay iida iska keedaa kaliya aan hawshada watay waayaan raako ku sheegay khalad waayahay buu yiri sijaayada ana halkan ii taala asna halkaas u taala markaasuu sangu isku xiraya habeen buu yimaadaa habeenna waa tagaa maalinta dhan uu maqan yahay marka habeen iyo maalin markaan joogay baa subaxii hoosta waxaa ka dhacay dagaal waxaa dagaalamay cabdullaahi caartan iyo xaaskiisa dagaal culus baa meesha ka dhacay markiiba dadkii dariska waxay dadka Soomaalida oo islaynayaan buuq marka guriga u xiran waxba gacanta isku dhufan laakiin islaan reer mudug oo kulba is hayaan oo ma aqaan gabar inay noo sheegin karaade buuq ba ka dhex taagnaa waan soo degay meeshiisaan ku heshiisiyey maxaa la isku qabtaan markaas ayada miyaa tiraha ayada tiraan u malaynaya cabdullaahi yuusuf Soomaaliya burburkeeda sabab u ahaa buu leeyahay markaasuu yidhi asayra ayadana waxay tiri maya ninka ummadda inta xirxiray xabsida ka buuxiyey ciro dilay kaasa dadka marka waxay soo haystaan cumar maxamuud iyo reer diini waxaa helay ilmi dad xasu dhalay baati nimankaas waa tageen faraha kala bax dowladda Soomaaliya burburtay xaaskiisaatiin waa iska heshiiyey markii waa la heshiiyey aduu ayaamka joogtay way soo kacayaan laba way kacayaan aduu dadkaas akhyaartaan la deganaa waa wax badan baan isfahnay aniga ayagu ilaahay baana ku mahadsan markii dambena guri gaaran helay Carol Street la yiraahdo wada kale Carol Street 9 markaas waxaa la ii soo helay shaqo wali waxba islama hayo aan cunto ahayn
shaqo nin gurigiisii dhisanaya oo Jarmal ah waa guriyii hore oo qadiimka oo dagaalkii labaad guriyahooda hoos buu sii qodayaa oo dhismo hore ku jira marba isla meesha aad qodaysaan ma qabuura maal diriil oo wax lagu dalooliyo iyo ku xiraya oo sunkiisa wixii leh xabadka ku xiran kaasaad ku daloolinaysaa dhulka asna wuu guraya marna isagaa duleelinaya anaa guraya niman baa soo helay inuu Cabdullaahi Cartanki ii soo helaan u maleeyaa saacadii $10 waxaan go'aansaday nafteena ag dhiga marka 10 saacadood isku xigtay inaan shaqeeyo waa $100 maalintii bishii waa 3,000 laakiin lacagta ay muuqatay dhibka meesha ka imaan kara muuqdo waana shaqo dawladdu aanay ogeyn oo canshuur aan laga qaadan dad ku dhaawacanto isma soo daaweyn kartid isbitaal ma tagi kartid waxaan ku yiri marka anigu waa tukadaa marka ma ixtiraamaya yiri nus saac amal oo salaadayda iyo musqulaha iyo hawsheeda abu siiyay cuntada markaan cunayo cuntaan sii qaataa oo niman Turkiga meeshoodan ka sii gataa qaarna ana habeenkii sii karsada boorsan dhawr ka buuxsada cuntada meeshaan ku cunaa shabaar ismaan buu oran jiray wiilkii madooba oo yudumis isin waqti xilliga cuntada la gaaray marka ninkaas hor 10kii bari ugu horeysay mar alla markii maalintii koowaad aan shaqeeyay oo $100 u dhiibay lacag $100 u dhiganta yaani bas meeshaan waa inaad xaaskaaga iyo reerkaaga meesha uga gurman lahayd waa halkan jugtay soo gaari la waxaan 20 kilogram ba dhabarka igu xiran 30 ama 40 waa garaacaya in waxaana garbaha iyo murqaha wax u geystaan iyo dhabarka maba ogiba dhalinyaranimo ay wada iyo lacag doon marna isaga qaadanay markuu arkana xoogaa daashibo asoo isku xiraya markaas uu caarar dhan duminaya oo asaga iga shaqo badnaa 80% isaga shaqeynay 20 amal waxaan shaqeynay aniga waa ani laba qof oo guri dhan inta hoos u dumiya dan la soo rabo in la soo dhiso shaqaale kale mar halkaas qof oo la shaqeynayo raba waliba nasashada ay ogola salaada way ogola xilliga cuntada cunayo ay ogola si fiican bii la tacaamulayay laakiin hawsha adag waligeena waxaas kale kama shaqeyn lacagtu masiibo way qofka meel bay gelinaysa maalintii koowaad marka haddana isla maalintii kuu dhiibay ma oo bari aad sugaysa ma faruhu ka saaray farasaar gaari yar xaaskiisa gaari ugu soo qaaday guriga ay keenta subaxiina anaa baxa bas aroortii meesha maraan sii raaca anoo waxaygo raashina wata 10 bari markaan waday isma ogi ilaa dhabarkii oo dhan baaba kala go'ayba xanuun ciibaan gagagagadasan go'ay $1 aan hayo ugu yaraan oo bilaabay qaraabada inaan u diro gabadhi telefoon dir waraaqad dir wax dir meel laga hagaaga ma leh sii wada 15 maalmood 20 maalmood yaa waxa arkaan oo dhabar ka seexan waa habeenka dhabarku dukaamay gig dhabarka xanuunaya ilaa wax alla wixii xoog ahaan isticmaalay Cabdullaahi Cartan baan u sheegay dhimana masaajid iska marso biyo kul baasha biyaha kul lagu shubo Soomaali saari jirtay magaceeda ma aqaan tii wiir biyo kul ka buuxso dhiig yar xoogaa meesha ayaa fariistaan malaynaya dhabarka saacad u saartay ku seexo waxba ii tartay laakiin wax badan saas ima tarin nasasho u baahanahay waa 10 saacadood isku xigtay hal saac marka laga saaro 9 saac baan shaqeynaya oo marna dhagax guraya dhagax bulkeeti oo kale u go'an marna duleelinaya marna shamiito qasaya shaqo adag baa very hard job ninkii salaadeedu la yaabay wuxuu yirniyow diintiina teena ka fiican aanan bay la sheekaystay maxaa ku tiri baan ku yiri wuxuu yiri diinteena waxba laga bedelin sidoo uga tagay waa nabigiin sallallahu alayhi wasallam anaga laakiin buu yiri bil walba sanad walba bible ku xabaa lagu daraa waxna laga dhimaa buu yiri waa ku cadaan marka diinaada haysan ma iska islaamti hadda anaga islaamnimo ma go'aansan buu yiri laakiin waxaan ku sheegayaa diin rasmi ina haysato hal arin aan ka xumaay laakiin Saddam Hussein iyo Khomeini soo diintiina ma haystaan maxay ummadda u baxasuuqeen buu waxaan ku yiri ummad la xasuuqo waa dulmi laakiin ninkii dulmigiisa say u taala ka waran baan ku yiri Hitler diintaayst kristaan buu hawl wala kristaan ku adag ma qam milyan buu dilaa runta waa yiri marka ninkii daalim asay u taala laakiin diinta Ilaahay waa xaq alla kaliya la caabudo oo nabiga sallallahu alayhi salaatu wasalaam adigu cabaar ma sheekay iga diidiyay laakiin waa iska uu qiray islaamku inuu xaq yahay 20 cisho markaan shaqadii waday laakiin aan isleeyahay talmaba wadi kartidba naftiiba iga dhacna waxa islaha lacag un doonay maba ii muuqan dhibka ay gaaray
hab loo shaqeeyaana jiro waa la shaxaadaa shaqada oo mar waa loo nastaa mar tartiib baa loo wadaa mar waa namba dhammaanta iska geystaa maanta ninkaad iskaga hayaa si loo shaqeeyo ma aqoono oo xoog maan raba inaan isticmaalo qof markuu shaqooyin gacanta hore usoo maray xeelado badan buu yaqaanaa oo ku nasto aduu si fiican ba meesha isugu dilay bishii abril marka la marayay bilowgeeda 1 ama 2 ahayd yaa boostada waraaqiitaa la arkay anugu waraaqaan dhudhum intaa u dira ilaa walaalkeed baa helay maxamed sahal baa waraaqa helay mid ka mida wuu arkay gabadhiiba waa hore 6 bilood ka hor bayba soo dhoofto Yurub bayba joogtaaba ana war kama hayo halka aynu joogo insha Allah jazaakumullahu khayran wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam